sugidda iyo sirdoonka Jubbaland ee gobolka Gedo oo ay weheliyaan maamulka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo gaar ahaan gudoomiye ku-xigeenka degmada ahna madaxa amniga mudane Sugow Cali Barre ayaa saxaafadda u soo bandhigay sarkaal ka tirsan kooxda shabaab ee isagu isku soo dhiibay laamaha amniga degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo waxaana uu ninkan ka soo baxay kooxda shabaab uu qaabilsanaa saldhigga deegaanka Tuulo Barwaaqo oo u dhaxaysa degmooyinka Balad Xaawo iyo sidoo kale degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo waxaana uu sarkaalkan ka soo baxay kooxda shabaab oo tilmaamay inuu ka faa'iideystay cafiska uu madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu fidiyay dagaalamayaasha kooxda shabaab Tuulo Barwaaqo waatahay hadda markaad imaaday degmada Balad Xaawo maamulkana aad u timid iyo hay'adda nabad sugidda maxaad ka haysay Tuulo Barwaaqo shaqade waxaan ka hay hadda wadamada ugu meesha waxaan ka hay booliska ka xisbi waatahay taliye saldhig ba ahayd waatahay haatan waxaad ku sugan tahay degmadii Balad Xaawo waxaad la joogtaa ciidamadii nabad sugidda iyo kuwii daraawishta Jubbaland bal waxaad ka warbixisaa qaabka aad ku soo gashay iyo waxyaabihii kugu dhalay inaad ku soo biirtid ciidamadan iyo sidoo kale maamulka hadda jira waxaan sheegay markaa inta ku soo biiray isbedelka iyo madaxweynaha cusub oo doortay iyo markaa joogan cusub dartiiban aad soo dhigay markaa sharaadii aan ku dagaalamay baad wax markaa jirin maanta carab inaan markaa أنا أسكر سوماليات ومارتاي دركيس دفاعنا ومارتاي مديسة كان ما يراد بنيسو الإسكاع بنيسو دوي ومارتاي نعرفهم بنيسو دوي ومد حيسو دويسي ومد أقوم بيسو دويسي حتى عيل من هنا ومد أقوم بيسو دويسي وحاوي أد بنيسو الإسكاع بنيسو دوي وحاوي بلوك اسميني أد بمارتاي هذا أميق أد يعني هذا واتا ما أميق يعني شرقي ما أميق يعني waxaan u baaqi lahaa inay maartay ay door ka soo baxaan dalkooda iyo maartay imaadaan inay gooni iska dhigno maartay si fiican uga soo dhaweynay gacan furmo uga soo dhaweynay talaabtoodii wixii ay wadaan maartay wax ka dhigay eed marka waxaan dhihi lahaa in badan ay soo dhibeen gudoomiye ku-xigeenka degmada ahna madaxa amniga Sugow Cali Barre iyo taliyaha nabad sugidda Jubbaland ee gobolka Gedo mudane Cali Abshir Xasan Deer ayaa ka warbixiyay qaabka uu sarkaalkan isku soo dhiibay askar ayaga kamid ah oo noo timaaday oo si fiican u soo dhaweynay ayagana inaan ka hadalno askarta ayaga kamid ah shalay bay ka soo galeen aad baan u soo dhaweynay waa soo rad bixinay waan wanaajinay waan qurxinay waana lana joogan kamid ah kuwa dambe oo maqan oo meesha jiro oo baabaay oo rafaadka iyo oomka iyo dhibaatada u dhintayna waxaan leenahay sidoo kuwan u soo dhaweynayna oo u qurxanayna in ayagana sidoo kale aan yeelayna cid noo imaado waxa isu kaan soo dhiibin sargaal ah oo ka tirsan shabaab kooxda qabasha ka tirsana asaga oo garawsaday inuu wuxuu ku jiray ay tahay dhibaato iyo fidna ay tahay sheegayna markii isbedelka Soomaaliya uu ka dhaco madaxweynaha cusub la doortay inuu go'aansaday inuu ka soo baxo nimankaas dagaalqabaasha ninkaas wuxuu ka ahaa taliye saldhig iyo wuxuu ka ahaa Tuulo Barwaaqo la yiraahdo ayuu ahaa taliye saldhig ka ahaa muddo shaqeynaya ninkaas nin muddo shabaab ku soo jiray ayuu ahaa shalay waa soo dhaweynay gacan furan baan ku soo dhaweynay ninka asaga yaan ka dhacay Soomaaliya ka dhacay baa yaa keenay wiil oo maartay aan isu soo dhiibay ciidamada nabad sugidda iyo ciidamada daraawishta Jubbaland ayuu isu soo dhiibay degmada Balad Xaawo iska soo dhiibay waana la joogay waxaana sidoo kale hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Jubbaland ay gacanta ku soo dhigtay tiro miinooyin oo markaasi lagu rakibay goob ay shacabka reer Balad Xaawo ay ku daawanayeen xafladda cali masaarka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo qalab badan oo fara badan miinooyin oo nimankan dagaalqabayaasha magaalada gudaheeda ay geliyeen الله naga badbaadiyay dagaalqabayaasha fidnada ay soo wadeen sidaad arkaysaan meeshan qaraxyadan yaallo shalay ayaa
lagu guuleystay in la qabto kooxihii dhagarqabayaashaha ayaa soo xirxiray soo maleegay dhagartan waxayna u soo maleegeen shacabka ummadda Soomaaliyeed iyo u soo maleegeen waxay geliyeen dhowr goobood laba goobood bay geliyeen qaraxyadan ku diyaariyeen goob lagu fiirsanayay oo ay taalo maartay television u yaallo video u yaallo oo lagu daawanayo caleemasaarka madaxweynaha lagu daawanayo ayay ugu talagaleen inay ku halaagaan dadka shacabka oo meeshaas daawanayay ayay ugu talagaleen inay ku halaagaan ummadda marka damaashaadaysay oo caleemasaarka madaxweynaha daawanaysay inay halligaan habeen ilaahay baan ugu guuleeyay alxamdulillah Allah ku mahadinaynaa kooxaha dhagarqabayaashana fidna kastay soo maleegaan waan